Jafar wuxuu ku amray waardiyaasha kabta Aladdin intii lagu dagaalamayay faanuuskii ayaa ka siimay imaamadiisa. Awooddu anigaa leh. hal mar buu ulkiisa ruuxay. Jafarna wuu ka ayriyey Aladdin dul barafaysan oo edlo ah. Jasmiinna wuxuu ku hanibay saacad ciid cadoween. Eeg sida waqtigaagu u sii dhammaanayo amiirad. Aladdin wuxuu ku dhahay baraf qoto dheer isagoo qabow darteed u gariiraya. Makuusan wuu arkay roogga duulaya. Aladdin wuu ku soo jibtay daaqadiisa kafka ee kasriga iyadoo iidu gaartay dhexda Jasmiine. Ma ku soo noqotay inaad dhimato? Jafar wuxuu isu beddelay masweyn oo Aladdin ku weeraraya. Jasmiine iyadoo timo xiriheeda fiifan adagsanaysa waxay dildilaarisay muraayadda. Iidu way daadatay iyaduna horbay u soo baxday. waxay kabsatay shanbixii culus ee makaanikada ahayd oo Jafar bay ku tuurtay. Iid baa sii daadatay iyaduna way soo fakaday. Mar kale ayay isla shanbixii bixta ahayd qaaday oo Jafar ku ganagtay. Ma isleedahay waad awood badan tahay? Aniga noolaha ugu awoodda badan dhulka. Khalad, jinnigu ayaa ku siiyey awooddaada. Inta uu faanuuska hayo wuu ka awood badan yahay. Waad saxan tahay, jin rabitaankaygii ugu dambeeya. Waxaan doonayaa inaan noqdo jin awooddiisu aan la koobi karin. Rabitaankaagu waa amarkayga sidaa tiraahdo ayaan yeelayaa. silsilada dahab ah ayaa ururadiisa Jafar ku hermay. Faanuus yar oo madow ah ayaa Jafar isagoo qaylinaya gudaha u nuugay. Aladdin ayaa qaaday faanuuskii Jafar wuxuuna si xoog leh ugu tuuray saxaraha fog. Sixirkii wuu jabay. Aladdin iyo Jasmiin ma aha oo keliya inay boqortooyada xukumeen. waxay fureen xaruntii weyn ee farsamada ee Agrabah. dhammaantoodna waxay ku noolaadeen farxad, hal abuurnimo iyo xorriyad weligood.